بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan nahay walaalkiin wariye Cabdullaahi Baalgoray mar kale daawadayaal waa idin salaameynaa waa galab kale oo galabkii hore ka duwan kana farxad badan waa idin salaameynaa waxaan ku suganahay hooygii labadii waayeel ee aan idin soo gudbinay ee dhibaataysanaa ninkaas asagana odayga ah soo dhow ninkan asagana odayga ah oo mas'uulka ka yahay ninka asagana odayga oo mas'uulka ka ahaa ee dhaleen caruurtiisii ay islaanta oga tagtayna ay kuban yihiin waa 4 ciyaal ah waa 5 ciyaal ah oo ay ka tagtay hooyadood duruufa iyo xaaladda adag ee ka jirta halkan awgeed iyo ninkan oo waxba haysanin oo waalidiintiisa ku rafaadsan galabka ka horeeyay waxay ahayd murugo waxay ahayd waxaan la iloobi karin waan idin soo duubnay waan idin la wadaagnay walaalihii Soomaaliyeed ee khayrka jeclaa ee aan muuqaalka isaga ah la wadaagnay way ka soo jawaabeen khayr Allah siiyo lacagtan aad u joogtaan waa lacag 2 milyan waa lacag 2 milyan iyo 400 oo kun ah oo shilinka Kenya ah waxay u dhigantaa 2 milyan waa 20 kun oo dollar 400 waa 4 kun oo dollar waxa kale oo jirto hooy baa loo sameeyay ilaa iyo 6 qol oo hooy ah waxa loo sameeyay oo kale in la soo gaarsiiyo gaari dameer ama karata hadba saa u taqaantaan maadaama ninkan xirfadiisa ay ahayd in karata uu ku xamaasho dadyow kale maartay laga soo ajeeray ama uu ka soo bariyay saas awgeed dad muslimiin ah ayaa waxay soo sidqaysteen karatooyin waxa kale oo jirta gogoosha si wanaagsan waxa soo gaartay ilaa ku dhawaad 10 matarees iyo 4 sariirood intaan haatan hayno waxa kale oo soo gaaray raashin aad u fara badan oo runtii si aad ah muslimiinta ugu soo sidqaysteen gaar ahaan kuwooda kula noolaa xaryaha qaxootiga oo ayagu wax saas aan ku sii dhaamin dhammaan guud ahaan muslimiinta soo caawiyay dadkan Soomaaliyeed waliba waayeelada ah ee waalidka ah ee labadeeda garab fadhido waan u mahadcelinaa muslimiinta soo caawiyay dhammaan halkan waxa ku idil culimadii iyo mashaayiqdii ka ariminaya arrimaha diinta ee xaryaha qaxootiga ee Dadaab gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo ee aan muuqaalkan ka soo duubayo dhammaan dadkan agaarkiga fadhiyo waa culimadii iyo waliba mas'uuliyiintii xeradan qaxootiga waa dadka mas'uuliyiinta ka ah xeradan waan salaameynaa dhammaan muslimiinta waan u duceynaynaa lacagta ayada walaalayaal oo aad soo dirsateen waxa jira dad fara badan oo ma aragtay dacayad ama waxyaabo kale tabinayo oo sheegay in lacagihii ama muuqaaladii anaga aan soo duubnay ay yihiin been abuur walaalaha muslimiinta galabta waxay indhahooda ku arkaan lacagta ayadaheed ee aad soo dirteen walaalayaal in sidii la rabay ay u soo gaartay waalidiinta aad ugu tala gasheen lacagta ayadaheed waa 2 milyan iyo 400 oo shilinka Kenya ah hortiina ayaan ku tirani 100 kun oo shilinka Kenya ayay ma aragtay u xirantahay u kala xirantahay sidan hadda waa 100 kun hortiina ayaan ku xisaabin hadii qof walba waxaan doonayaa inuu ku qanco sida hadda 100 waay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 waa 1 milyan soo ma 1 milyan waa 1 milyan waa meeshaas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مليون كله 2 مليون 2 3 iyo midka ambaasada ku jira oo balanska ah ee soo bixi waaye waa 2 milyan iyo 400 lacagta ayada way ka madax banaan yihiin guryaha la dhisay ee 6 qol aan maartay dhabarkayga dambe iyo guud ahaan blogaba way ka madax banaan yihiin lacagtan raashinka lacagtu uu ka madax banaan yahay gogoosha lacagtu way ka madax banaan tahay muslimiinta soo caawiyay qoyskan waan u mahadcelinaynaa waxaan walaalayaal u codsanaynaa in propagandada la joojiyo waxaan waxa weey wax dadkan muslimiinta Soomaaliyeed aan ku caawinayno waxaan u qaban karna malaha kaliya waxaan u qaban karna walaalahanagu waxa weeyo in aan codkaanaga ku biirino oo muuqaalkooda dhibaataysan aan u soo gudbino muslimiinta Soomaaliyeed ee walaalahanaga ah jeebkaanaga ayaan isticmaalayna shidaalka gaariga wax kasta anaga jeebkaanaga isticmaalayna waad maasantiin waxaan